بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد maanta oo bisha sagaalaad ay tahay 8/2/2019 isla markaana ku beegan 9/2 bisha Muharram 1441 hijriyada waxaan si rasmi ah insha Allah ta'ala u howlgelin doonaa xarunta cusub ee Sheekh Cusmaan oo in muddaaba qorshaheeda iyo irgelinteeda aynu ku jiray waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada inay waxa weeyaan hadda wixii ka dambeeya ay halkan ka adeegan doonaan xaafadan ballaaran ee Sheekh Cusmaan sidoo kalena waxa hadiya jeer shirkadda Telesom ay ugu talagashay macaamiisheeda inay u dhaweyso adeegyadeeda oo ay si fudud u helaan meel dhowna ay ka helaan ayadoo taasina ay noqonayso in adeegyadii shirkadda si fudud loo helo isla markaana ay bulshadu ka hesho shaqo abuur iyo dhiirigelin inagoo goor walbana la jaan qaadayna xilliga lagu jiro ayadoo ay macaamiishu bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillah ilaahay baa mahad leh waxaynu maanta joognaa xaafadii Sheekh Cusmaan waxa ilaahay loogu mahadnaqay tahay in xaafadda Sheekh Cusmaan maanta anagoo shirkadii Telesom aanu ka daafurno xarun cusub oo ugu talagalnay xarun iiba runtii xaruntan oo aad ka heli doontaan dhammaan adeegyada shirkaddu ay bixiso ay ka mid yihiin adeegyada asaasiga ee shirkaddu bixiso sida line-ka internetka zaadka iyo dhammaan adeegyada inta badan maalinta ka dambaysa shirkaddu ay soo daafurayso markaanu aragnay baahi runtii xaafaddu ay u qabto xarun gaar ah inay u adeegto habeen iyo dharaar ayaa taas waxay keentay inaan si degdega uga turjino baahida xaafadda oo nu daboolno aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa macaamiisha waxaan leenahay macaamiisha inay ka faa'iideystaan dhammaan adeegyada ay marka horeba shirkadda ay ka isticmaali jireen ee u haayeen macaamiisha shirkadda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xaafadda Sheekh Cusmaan waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada xarunta waxay nagu diyaara shaqaaliyaha wadbaad ku taqaaneen ee wanaagsan shirkaddu lahayd aad iyo aad baad u mahadsantihiin bismillahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad iska leh adeegan Telesom aad iyo aad baan ugu baahnayn xaafaddu aad iyo aad bay ugu baahnayd idinkana waan niga mahad celinaynaa bulshadana waxa weeyaan suuqay u tagi jireen marka ay ama wax ka xidhmaan ama ay wax ka soo samaysanayaan iminkana waxa weeyaan xaafadii dhexdeedii baaba la keenay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh idinkuna waad mahadsantiin walaalayaal bismillahir rahmaanir rahiim waxaan ka mid ahay xaafadda Sheekh Cusmaan dadka ganacsatada ah ee eriyadan degan baan ka mid ahay anigu boqolkiiba boqol aad baan ugu faraxsanahay inaan maxay heedaanay xarunta Telesom ee cusub ee laga furay xaafadda Sheekh Cusmaan sababtoo ah haddii uu simikaarku ka xidhmo waxa la bixin jiray bijaaj nool baa loo raacaa waxa lagu hadana loo soo raacaa saadka haddii aad 100,000 oo Soomaaliland bedelanayso dollar u bedelanayso inaad kharash ku bixiso hadana iyay noqonaysaa maxay heedaan aad ku bixiso bajaaj marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay assalaamu alaykum waraxmatullaah bismillahir rahmaanir rahiim hambali alleena Telesom sababtoo waxyaalo badan oo anagu aan suuqa u tagi jirnay loo soo dhaweysay hadana xaafadda Sheekh Cusmaan waxaan ugu habaliyeenaynaa madaxdooda waxaan leenahay hambaliyo waxyaalo badan oo anagu aan mar hore baan u raacnay la suuqiyo dhul dheer aan u tagi jirnay aad keenteen xaafadii horteedii waxaan u hambaliyeenaynaa madaxda Telesom hambaliyo